kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warbixinadeena taxanaha ahaa ee ku saabsanaa guurku horta kii hore iyo midka dambe markaan barbar dhigno sa'i ahaantayda waxaan qabaa 99% inuu fiican yahay guurkii hore. guurka sidiisa ciyaar maahan dhalinyarada guurkooda ee fududeystaan oo darbiyada micnaha ay arrimahooda ka dhamaystaan oo kale misana ay ku kala tagaan horta kaas awalaataan guur la dhihi karina aaminsanahay aniga waxaadan familkaaga u sheegin ama aasan kuu soo sacbaxsanayn kaas horta ani guur ma wadi karaba caawa waxaan idin hayaa sheekadaasi sheeko ka duwan waxayna ku aadan tahay guurku waxa uu soo tixnaa in muddaa waana waxa keliya ee lamaano weliba ay ku hamiyaan inay maalin gaaraan raadiyana qof weliba inuu soo maro maalinta ugu qaalisan noloshiisa uguna farxadda badan kagana gudbo dhibaatada kelinimada ay leedahay wiil iyo gabar weliba ee xiriir sameeya ee dunida dusheeda saaran waxaa laasim ah inay maalin soo marayso maalinta ugu qaalisan noloshooda ay kaga gudbayaan kelinimada una gudbayaan wadajir si ay u yagleelaan una dhisaan guri ay mas-uulka yihiin lamaanaha ayaa rajeeya in gurigaasi ay ka noqdaan hooyo iyo aabe kuwaasi oo hogaamiya gurigaasi haddaba su-aasha waxa ay tahay waxaan leenahay dhaqan soo jireena kaasi oo ku aadan guurka iyo waxyaabaha la xiriira su-aasha taagan waxa ay tahay guurka jiilka cusub ee maanta iyo guurkii hore keebaa wanaagsan kaga bogo waraysi dheer aan la yeeshay Siciid Cali Muuse iyo Farxiye Abuukar Cali oo ka mid ah dhalinta reer Muqdisho kuwaasi oo ku kala aragti duwan guurka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta guur hadii la yiraahdo guurku horta kii hore iyo midka dambe markaan barbar dhigno sa'i ahaantayda waxaan qabaa 99% inuu fiican yahay guurkii hore sababtoo ah guurkii hore wuxuu ahaa guur maaragtay dad isku qalbiya isku ra'yiya isku maaragtay isku deegaan ah inay markaasi israadsan jireen. waa gartay haye Farxiyo wallahi walaalkayga fikradiisa aniga waan ka duwanahay Farxiyo ahaan waxaan aaminsanahay guurka maanta jira inuu wanaagsan yahay saasay tahayna waxyaabo badan aan ku dhaliilaa guurkii horena woo jira lama qabi fikradaas walaalkay aniga waa gartay dhaliisha waa usoo laaban doonaa Siciid haddaad isbarbar dhigto guurkii hore iyo midka maanta jira oo sababana aad u yeesho guurkii hore maxaad ku xulatay inuu ka wanaag badan yahay midka maanta jira maadaama xilli casriga la marayo oo ummadii maaragtay la hormaray oo sidii hore laga soo gudbay. Okay sax weeye casrigu iyo horumarku horta waa meeshiisa balse guurkii hore wuxuu ahaa guur maaragtay ninka iyo naagtu aysan ka ahayn wax maaragtay iska ciyaara ama wax fudud guur horta marka la yiraahdo sidiisu wax fudud ma aha kumana sii jiraan dadkii hore guurku wuxuu la ahaa wax culus la ahaa ninka xataa marka gabadha la siinahayo waa qarqari jiray waa dhuuman jiray guurka dhibaatuu la ahaan jiray culaysuu la ahaan jiray miisaanka wuxuu la ahaa aad adigu aan hadda aanan anaga qiyaasi karin oo culays saa'iduhu la ahaa laakiin midka maanta jirana guurka maanta jira waa guur khafiifa waxaad arkaysaa wiil baa gabar guursanahaya wuxuu leeyahay walaalay waa ku jeclahay aad baan kaaga helay xaloo dhan ma seexan raashin kuuma cunin gabadhii ku beerjilacsanahaya waa guursanahaya amaba wuxuu leeyahay walaalay anigu maaragtay wax awooda ma hayo tabar ma hayo inaan ku guursan rabaa gabadhii meeshii ninkii rajo ka qabaysa aaday u jeclaanaysaa waa guursanahaya dhab labadood beriyo meelahaas la warwareegaya wuxuu ku leeyahay walaalay anigu tabar ma hayo awoodna ma haye waxaad samaynaysaa bal meelahaaga gabadhii waxaa laga yaabaa inay meesha uur ka qaado inay dhibaato badan fara marto inay asagii raadiso xataa ay ka kari weydo kaala cidayada u tag haye ii kaadi Farxiyo bal ka waran sababaha Siciid uu sheegayo dhalinyarada maanta jira waxyaabaha lagu dhaliilaya ma jiraan horta guurku sidoo walaalkayga Siciid uu sheegay guurku waa qiimo aad u weyn guurku sidiisa ciyaar maahan marka waxyaabaha kale uu ku dhaliilaya wuxuu ka dhawaajiyay in ay tahay in micnaha dhalinyarada guurkooda ay fududeystaan oo darbiyada micnaha ay arrimahooda ka dhamaystaan oo kale misana ay ku kala tagaan horta kaas awalaataan guur la dhihi karina aaminsanahay aniga waxaadan familkaaga u sheegin ama aasan kuu soo sacbaxsanayn kaas horta ani guur ma wadi karaba waxaa la tilmaamaa guurkii hore xilligiisii in gabadhu muddo dheer ay ka fakiri jirtay wiilka ay guursanayso ama maaragtay muddo maaragtay reerku ay arrinta loo fadhin jiray laakiin hadda waxaa laydinku dhaliilayaa da'yartiina casriga ah wixii dhammaaba inaad maaragtay
qab qalalax aad ka dhigteen oo wixii dhammaa hoos isugu dhammayso wixii dhammaa la fududeeyey maaragtay wixii dhammaa oo fudeed aa ku dhamaynaysiin dhaliisha haddana heesataaba fudeedkaas ah laakiin aniga ma aaminsana maanta in aan fudeed ee dhaliirteena ay ku dhaqmayaan guurkan anaga agteena waxaan aaminsanaha inuu qiimo weyn ka joogo haye Siciid okay midaan weydiinayaa gabadha haye okay ayada hadda waxa waaye kolley waa da'da hadda soo baxday waxaan weydiinayaa ayayda iyo awowga ilmisay isku soo gaareen ama aabbaha iyo hooyada ilmisay isku soo gaareen welisha ma kala tageen oo ma isku soo noqdeen su-aashaas weydii farxi haye wallaahi ayayday aabahay qadiimi ay kala soo noqdeen muddo badan ilaa oo awoogayga ka jiriyo isla joogan hadda ayayday aa nool alxamdulilah okay hadda ma la helahayaa laba qof oo xataa 4 sano keliya isqabta ma laga helahayaa dadka hadda jira buux waa la helayaa ma ku soo mareen intaad hadda adigu nooleed oo xataa toddobadii dhexdii ama ku dagaalamay ama intii la israadsanahayo ku diriray weli ma ku soo mareen waa ku arkay badanoo noo ku ark way buuxaan Siciidow hal su-aal haddaan ku weydiiyo haye dadkiinii hore micnaha waaye jooga ahaa ee usoo joogay jacaylka dhalinyaradii hore waxaa lagu eedeynayaa in guurka ay adkeeyeen dadkiina wixii lagu adkeeyey wiilkii maaragtay yarda tiro badan la saaray oo maaragtay dhaqaale uusan ka bixi karin laga yaabo in ciddiisa aysan xoolo lahayn gabadhiina marka sidaa daraaddeed la yidhi haddaadan intaas aadan ka bixin ma guursan kartid oo aabbi intuu soo fadhiisto uu yidhaahdo intaasoo yardaan ka rabaa bal arrintaa ka waran arrintaasi sember waxay ahaan jirta mid dhamaato oo arrinta horta sidiisa waxaa lagu goyn jiray soomaalida wixii hore haddaad taqaana geed baa lala fariisan jiray gartaas rag baa geli jiray waxaa la arki jiray xataa markay arrintaasi gaarato rag kamid ah ama tolalka kamid intay gacanta taagaan dhahayn hebel anigaa 10 halaad siinayo hebel kale anaa 5 siinayo horta guurkaasi ma burburi jirin intii uu ahaan jiray meesha okay marka waa loo geed fariisan jiray guurkaas kuma burburi jirin ilaa wiilka gabadha uu helana ma ahayn wax fudud inay uga tagto waxaan kaloo ku darahayaa weli ma aragtay adiga xataa dalmara weli ma aragtay nin gabar isku jeexjeexaya inta jacayl ugu burro hadda xilliga jira ma ku arag dhalinyaro fara badan oo waxaa la arkay korkoodii ku qoray gabdho magacyadooda sida maaragtay abaayo waan ku jeclahay oo kale I love you ama in gabadhii magaceedii uu ku qortay jirkiisii oo la arkay iyadoo sidii shabadii oo kale ugu dhegan oo dab ah soo lama dhihi karo waa jacayl jira oo maanta ka hormarsan kii hore ee geedaha lagula gamba jiray maya kii hore mindi caadiya gacanta lagu tari jiray ilaa hadda daday ku taallaa jira gacanta dhan waa qalan tahay ilaa seebtu soo baxda waa tari jiray kaniso wax yaroo sabaa oo sida xajada dhajiska la yiraahdo iyo wax haddii baasiin la marayo uu ku dhifin karo waxay uu barida ka dhaqahayo laakiin taasi waxay ahayd wax maskaxda jira jacaylka hadda jira maska qalbigan iyo niyada midna ma jiro waa afka unbes afku ku soo aruuray haye farxi adiga asiga ma aaminsan yahay xaqiiqdii aniga waxaan dhaayaha saaray qof jirkiisa ku qoray anaa indhaha saaran aaminsantaa weliba qof dumar oon deris aan ahaan jirna waay korin lama rabe dhiig ma ka keenay dhashida xididadiisa ma tahay ku keentay dhiig taas waxaa xaqiiqa kuga haya xitaa hadda ay dhahdo itusi oo ku tusin karaa okay fiiri dalmar hadda ka hor baa waxaa la yidhi gabaa si fiiri caqliga horta inuu fariin ku kala yihiin gabar baa waxaa la yidhi dadkii hore kamid ah walaalaheed u timid wadno ninka la yidhaahdo Siciid sidee baa lagu heli karaa dhalinyaro isku duuban kana dhabaysa jacaylkooda si ay ku gaaraan guur wanaagsan waxay ku gaari karaan horta shayga ugu horeeya ee lagu gaari karo guur wanaagsan ee mustaqbala waa cabsida ilaahay midda labaad waa inuu horta qofku iimaan leeyahay midda saddexaad waa qofka wiilka ama dhalinyaro ha ahaado ama nin dhexaad ha ahaado guurka uu raadinayo waa inuu guur xalaalah oo maaragtay sharciga islaamka ku dhisan guurkaasoo ka bannaan beenta khiyaanada iyo maaragtay faraxumaynta gabdhaha rag baa gabdhaha waxay u shaqaansantay jidkooda ku taabtaan bes gabadhaas jirkeeda meelkiisuu ku taabta u shaqaansanaya taasina waa inay horta ka fogaadaan kana dheeraadaan waxaan uu sheegi lahaa guurku hadduu ilaahay cabdiis ku dhisan yahay sharciga islaamkana ku dhisan yahay wiilkuna uu beenta iyo maaragtay khiyaanada intaas uu ka ilaaliyo guur xalaalah oo ilaahay subxaana watacaala raalli ka yahayna waa heli karaan saasaa lagu gaari karaa guurka xalaalka haye farxi adigana waxaan dhihi lahaa walaalkayga saciida hore u dhahay aniga intaasaan ku jiraya kalsooni marka la yidhaahdo dadka maanta jooga ee dhalinyarada jiilka cusub ah ma ka kalsooni badan yihiin dadkii hore marka aad fiiriso
waxyaabaha ay samaynayaan sida la leeyahay way isku qiyaamayaan bal adiga bal farxiya haddaad dib ugu laabato barnaamijkaas mar labaad kulan aniga inta aan ka mid ahay misana ra'yigeyga dad shantan barood ilaahay ma wada simin dadkooda ay qof walba grid gooni ayuu haystaa inta aniga aan isleeyahay adiga oo kale way kula qabtaa kulan aniga inaa maanta aan ka kalsooni badan haystaa waa gartay mawduucii hore haddaan dib ugu laabto farxiyo dhaliisha adiga aad jeedinayso oo aad u jeedinayso dadkii hore ee isguursanayey maaragtay sida maantay dadka ay isu guursadaan aan isu guursanaynin gabdhihii hore la guursanayay bal dhaliishaas bal ka waran wallahi dhaliishaas horta sideeda aniga maalin maalmaha kamid ah waxaan la sheekaystay ay marka anagoo gaban markay meel ku imaado inay ka sheekeeyaan ayaa maalmaha kamid anagoo wada sheekaysanayna waxay tiri jaceylka la sheegay ani maba arkin idinka dhageysan si ijaaraaye ayaan dhahay awoodda ku guursateen ani awood waxay dhahday waan ku keenay soo qortay gurib una nala keenay kaliya dhahday waan gartay Siciid ka waran bal adiga shakhsi ahaantaada dadka maanta jira dhaliisha adiga aad u jeedinayso horta niyahow dadka maanta jira horta kulli waa dhaliil lama wada oran karo oo kurta hadii la daba qabto dad waxaa isaga jira maaragtay waalidkoodii raacay oo dhaqankii waalidkood ama sharcigii waalidkood wata hal iyo dhif balse waxay 90% u badan yihiin dhalinyarada maanta jirta guur fudayd inuu yahay oo wax fudud ba uu leeyahay marka hadda wiil weydiiso gabar ahaa hadda guursanayaa barina waa fura oo kulay taasa afkooda dhan marka badan taasi u badan yihiin dadkii hore sida aan hore kuugu sheegay gabdhaha ayaa waxay ahaayeen dhif iyo qaliil marka hadda waxaa keenay oo guurkan fur oo sii daayo saddex waxaad maanta helaysaa nin afar naagood qaba waagi hore lama heli jirin ninku hadduu hal naagood helo bas way halkaas ku akhrisan jiray maxay tahay sababta maanta keenta marka arrintan sababta waxaa keentay gabdhihii farihii ka batay oo rag batay sida hadda laga taariikhaha ama ku taalla maaragtay jareeyo ay qoreen gabdhihii iyo wiilashii gabdhihii batay halkii wiil wuxuu kusoo aadi karaa qof walba kuli aad weyd maanta adigu dhexgal halkii nin 10 gabdhood waa guursan karaa kuli hadduu sharciga u banayn lahaa taasna waxaa keenaya dumarkii qaarkiis ma xadanna hadday xadanaan lahayn maanta sidii kuwii hore ayay la qiimo ahaan lahaayeen waan gartay farxiyo in la yiraahdo dumarka maanta jira qiimahoodu waa uu ka qiimo hooseeya kuwii hore ka waran taas asiga Saciid laakiin mid Saciid waa inuu xasuusnaadaa furiinka inuu wax ay tahay wax xag Allah laga soo qoray aysan ahayn wax aadamo uu wato taas horta xusuustaada geli laakiin haddii dadku kalsooni ay jirto Saciidow farxiyo haddii kalsooni jirto oo dadku ay yihiin dad isku kalsoon oo gurigii kalsooni lagu dhiso miyaysan dhici karin in gurigaasi uu waaro furiin laga badbaado ama ninkii hadduu qaata ama gabadhii hadduu qaadatee waa loo sababeeyaa taas laakiin haddii xag ilaah oo ka soo qoro oo labadan qof intaas maalmood ama intaasoo sano inay isla noolaadaan ama waxaas isku dhalaan ama aysan isku dhalin oo xag ilaah ay ka qoran tahay cid bin aadan oo gurigaas celin karta male laakiin sidee loogu badbaadi karaa maxaa keena maxaa sababay sababeen waa wax walba sax falo inuu ku sabab u noqdaa taas kuguma diidan waa kalsoonidan waa hormuudka nolosha ma diidani laakiin gabdhaha hadda jiraan dhan Saciid inuu wada sameeyo maya ani ma diidan in qaar ay nagu jiraan laakiin Saciid gabdhaheena dhan ma wada suma dalmar qaar inay nagu jiraan oo ilaahay kamid oo iska bedelay waxaan ku asna tarjeynaa kuweena kale oo doorsan inuu ilaahay ku hanuuniyo ay soo raacaan laakiin fataasan gabdhaha sanadkan jirweyn yihiin aniga ma ka yeelaayo Saciid taasoo ku dhaliisanahay ay kooy kala baxdaa haye Siciid ka waran adiga farxiyo waxaa la yidhi gar kugu aad noqoyso kugu noqsan waayaan la yidhi maxay tiri su-aasha aad weydiisay oo maxaa gabadha hebel hal ninaa sukaansan jiray maxay tiri xorriyo ma aysan haysan xorriyo xorriyadu ma ahan toban ninaa sukaansanahaya ma ahan Soomaali waa been ma mahmahdo run way been way sheegtaan laakiin been ma mahmadaa la yidhi geedkii fudayd lagu fuulo fudayda looga soo degaa farxiyo waxaad sheegtay hadda saacadan aan joogno maantay iyo waqti aan soo dhaafnay oo hadda ah naag afar nin guursataan aragnay 3 mid guursataan aragnay haye mid 2 guursatay hadda waad maqlaysay ninka la yidhaah wiilkan walaalkeena gabadhii laga sheegaya waa xildhibaanad haye ka waran sharciga ilaahayay dhaaftay
laba nin isku guursatay adiguna waxaad tiri ha anaga xorriyad waa runtii 4 nin guursataan xorriyad u leeyihiin saadaa yiri xorriyad nahay 5 nin isla sukaansato adaa yiri xorriyad hadda adiga gar kugu noq gar aad marayso kugu noqon waa yaa kuu baneeyay warkaan kale helna ficiya warka anaa wata yaa kuu baneeyay inaad 3 nin sukaansato ilaahay ma kuu baneeyay 3 nin aad guursato idageyso anaga xorriyada haysanaa marka aan ku dhahayo maahan wax shareecada islaamka ka soo horjeedo ayaan xorriyadu haysanaa maahan inaan ku dhahayo hadalka saabsan si jiraysa maahan anaga 100% waxaana dad islaama maahan waxay shareecada islaamka aysan dhigin in aan ku dhaqanno Siciid haddaan adiga kuu soo laabto waxaa lagu dhaliilaa gabdhihii hore in raggu markay isku dayaan inay shukaansadaan gabadha intaaman la shukaansan ka horba in maaragtay waalidkeeda ay ku adkay jireen oo gabadhu ay dhibaato fara badan ku qabtay inay ninka la kulanto oo ninka ay is arkaan oo cadibaad fara badan ay ku jiri jireen sida jiilka maanta cusub ay farxii u sheegtay inay xorriyad haystaan oo kale gabdhihii hore aysan xorriyad lahayn okay waa sax horta gabadha waa sunun gabadha in xorriyadda laga qaado meeshay ku jirtaa barkeen nin haddii meel la fariisato ama guri intay la gasho ay isku soo xirto meeshaas dhibaato fara badanaa ka taagan xorriyadda waalidku waxaa nin uma diidi jirin balse ninka waxaa rabay gurigooda inuu ku shukaansado inuu gurigooda ugu yimaado kuwa marka waa khasab xorriyadda in laga qaado way ku qasban tahay barkeen naag waxaa la yidhi ama bad ha kaaga jirto ama guri ha kaa joogto xorriyadda marka lagu sheegayo nin waxaa loo raadinaya markaas mustaqbal raadinaya ee maaragtay nin u qalma ama gabadhaasi ay maaragtay ciddu ama siin karto ama laakiin maahana gabadha intay soo baxdo guri inay la gasho sida hadda siilka jiro oo kale guriga ninkii gabadhii galeen waa soo xiraan dad isqaba ma aha haye qolay tirtiraysaa maantoo dhan way hagaajiyaa ku imaanaya hebel qolkay sii nadiifinaysa yaa u baneeyay qol la gasho daahase la sii daaya sharcigee baneeyey marka waxaan u malaynaya xorriyadda farxiya ka hadashiinaysa waa xorriyaddaasoo gabadho ay maanta dhan guriga safayso ay leedahay nin baa iisoo hataa katabaankii dharka ka guraysa wiilashu lahaaye gurigii xaaqayso qashinkii awalna ma xaaqi jirin hebel ay soo socda maantoo dhan guriga ku mashquulaysa laakiin soo lama dhihi kara taasi waa kalsooni dhex taalla lamaanaha is-shukaansanaya ee raba inay isguursadaan si u gaaraan guur daacada maya oo wiilka kalsooniya u siiso sharciga islaamku ma qabo in guri laisku soo xiro ama daah la sii daysto annagu sharci markaan ka hadlayna waa haddaanan aniga naftayda aanan xakamaynin waalidkayga maxay xakamayn karaan haddaanan aniga naftayda aanan xakamaynin farxiya ma xakamayn kartid guriga daah kusoo xirtay waaya naftaydu xakamayn waayo cafwan fiiri sharciga aan raacno ilaahay wuxuu baneeyay kama soo horjeedin cafwan fiiri horta su-aalan ku weydiinaa sharciga islaamka wuxuu qabaa ninka iyo naagta markay isukaansanahay inay bannaan cidlaha ummadda u jeeda fariistaan maahane guri laysku soo xiray siraal ilaahay fiiri quraankiisa waa noogu sheegay dumarka fiiri hadda markii ilaahay quraanka ka hadlaya wuxuu yidhi min kaydi kunna inna kaydi kunna cadiim uu yidhi dumarku aad u dhagar badan yahay u fiirsayaa maanta dhan guriga habaynaysaa waxba habaynaysaa marka lagu leeyahay fiiri dhagartooda idinku waxaad hadda kanaga dhaadhicinaysaan gurigan daaha loo sii daynayo annagu wax ka dhacay war maan u haynaa waa maya su-aashu yaa idin ku dambaabaysiin oo keliya fiiri cafwan fiiri horta fiiri guri daah loo sii daayay yaa sharciga banaynaya diinta islaamka meesha ay ka qabta gabar iyo wiil intay guri galaa inay daah sii daystaan ay qabin yaa baneeyay waa gartay farxiyo haddaan usoo laabto farxiyo jiilka maanta jira waxaa la gaaray xilli casri ah guurkii xataa hadda wuxuu ka soo tegay sida la tilmaamayo maalmihii ugu dambeeyey in gabdhihii xataa ay la dhuuman waayaan inay maaragtay guur ay rabaan oo ay niman raadinayaan ee la arkay gabdho boorarsita marka dhaliishaas bal ka waran soo maantay dhaliil taagan oo gabdhaha maanta jooga ay qaadanayaan soo ma wallaahi dalmar aniga maanan arag horta dhaayaha maanan saarin laakiin haddii ay jiraan xitaa ayaan ku dhahay waa qaar aniga inaga mid ah shantan sabab ilaahayna wadato waa qaar aniga inaga mid ah oo dhaqan doorsoomay waayaan ku dhahay laakiin soo ma wanaag badnayn gabadhu inay gurigeeda joogto oo wiilku gurigeeda ugu yimaado oo gurigeeda uu ku shukaansado halka gabadhii ay inta baxdo maanta ayadoo tawfiiq degan inta soo baxdo ee wiil madiine ay ku shukaansanayso in badan taas xitaa waxa kugu kala soonaanaya waalidkaaga nafsad ahaantaada adiga haqansigaa isku kala soonaanaysaa laakiin aniga lama qabo gabdhaha badanaan sanadkan jiro in ay wada ka yihiin dalmar ra'yigaas anigeeda lama qabo haye Siciid hal su-aalan weydiinaan ugu noqona farxiya weligaa ninaa jecesha xaafadiisa ma baraadisay wallaahi
nin aniga aan jecla horta jecel waa soo maro kuma dhahayo ma xasdaayo isma qarinayo wax waa soo jeclaada laakiin badanaan aniga waxaan ku shaqaysan jiray gurigeen weliba qolkii weli maya cafwa su-aashaas weli ma raadisaan kura hal mar baa allaha ka dhigeen wallaahi may ya oon gurigiisa ugu tagaa may kulama wadi karo kulama wadi karo سعيد adiga laftirkaaga haddaan ku weydiiyo maxaa diiday in gabdhihii hore qofka ragga ah ee wax kala dhaxeeyo inay u yimaadaan oo ay maaragtay siiyaan kalsooni ay tusaan inay jecel yihiin oo ay rabaan oo meesha uu joogo ay ku soo booqdaan sababta diiday maxay tahay xishood aad ilaahay uu siiyey ayaa keenaysa waxaad arkaysaa gabdhihii hore sida aan hadda annagu taariikhaha ku hayno gabadha hore ninka hadday jeceshay ma la hadli karto ishaasunbay ka fiirinaysaa xataa hadduu uu yahay geeljiro xataa hadduu yahay midka ariga galabtii subaxdii la raaco galabtii la soo hooyo indhahaasunbay ka fiirinaysaa isha xataa uma dhammayn karto bal fadhi ay la fariiso iska dhaafay indhaha umada dhammayn karto maantao dhan waa fiirinaysaa habeenkii markay guriga timaada waa fakiraysaa subaxdii arigiisay berri kuwa bixin laheed ay raadinaysaa waxa waye xishood rabbi saaray waay laakiin kuwa maanta jira ka waran kuwa meenta jira telefoon inta u dirsan hebel waxa jeeso taha hotelka aswa anigu ama hotelka hebel aan ugu nimaano waana ayadaaba xadki ka waad urtahayaan be waxay ka dheereeyeen raadkooda hooskoodiibe sayidoo taas xadka maya mideeda kale hadda fiiri farxiyo mid baan ku tusahaya hadda ka soo qaad maanta meeqa gabdhood ayaa riwaayad tisha oo madaxoodii bannaan yahay oo niikinays ma la heli jiray xilligii hore filmada hadda fiirso xamarweyne lagu dilahayo nin iyo naag niikinaad helaysaa ma la arki jiray fiiri horta waxaad leedahay casriga laga hadlaya laakiin soo taas lama dhihi karo waa casriga iyo horumarka maanta la gaaray ee maaragtay ay hablihii ay ku tilaabsadeen ay maadaama la arkayo gabadhii inay baxayso jaamacad aadayso oo ay wax baranayso oo berrina maaragtay ay ku kalsoon tahay qofkii guursan lahaa kalsooni ay siisay daraaddeed ay gurigeeda ugu tegayso soo lama dhihi karo oo shalay qarsoonaa maya naagana waxuu gabar waxaan u naqaanaa gabari waa tii sharaf leh oo gurigooda joogta ayaan gabar u naqaanaa gabar nin raadsanaysa oo niikina gabadha waxbarashada waa loo banay looma diidin taas waxbarasho aad iyo aad aan ugu qiimeeya gabar inay waxbarato waa jeclahay laakiin gabar inay niikiso fideeda banayso nin guri u aado maya waa gartay ugu dambayn marka farxiyo abuukar aan kuusoo laabto farxiyo abuukar sidee baa lagu heli karaa guur wanaagsan oo dhex mara jiilka maanta jooga wallahi guur wanaagsan waxaa lagu heli karaa labada qof horta isguursanaysa waa inuusan agtooda guurka dheeldheel ka ahaanin misena daacadii kalsooni ay ku dheehan tahay ee wax walba mustaqbalkooda ku aadan ay ka fikiraan qofkan gabadhaan wiilka ay guursanto mustaqbalkiisa iyo ahaysiinkiisa waa inay ka fikirtaa ayna fiirisaa aniga saasaan guni gabadha kusoo gabgabayn doonaa kaarka inaga gabdhaha ku dhaliilayaana koleyn aniga waxaan aaminsanahay 100% inaysan wax ilaahay iska duleeyo mooye inta kale aysan Siciid haddaan adiga kuusoo laabto gabdhaha maanta jira sidee baa loogu dabaqi karaa inay u laabtaan dhaqankii hore oo maaragtay hooyooyinkooda iyo waalidiintii hore ee ayaga dhalay ay lahaayeen oo lagu guursaday loo heli karaa gabdho wanaagsan guur wanaagsan oo ku dhisan maaragtay is-aaminaad iyo daacadnimo horta midda hore waa cabsida ilaahay gabadha horta inay ilaahay usoo noqoto oo ilaahay ka cabsato midda kalena taas waxaa lagu heli karaa gabadhu waa inaysan gurigeeda dhaafin oo gurigeeda ay joogto oo ilaahay cabsidiisa ay ku joogto ilaahay waxa waa wixii horta rabbi kuu qadaray waad helaysaa wixii markaas ilaahay calaf kuugu daray ninkii calaf kugula oo awlaadkiisa aadkiisa kaa dhaaqlayn ilaahay asagaa kuu keenahay orod aad raadisay ku heli maysid gabdhaha marka waxaan lagu sheegi lahaa gab walaalayaal istijiya ilaahay wixii idin qoray waad helaysaan cabsi ilaahayna bal ku laabto ilaahay dib ugu laabta waxa waay kalsoonid iyo guur xalaala waxaad ku heli kartiin idinkoo cabsida ilaahay qaata oo iska dhaafa nimankan aad raadinaysaan oo hoteelada iyo guryaha ugu raadinaysaan farxiyo abuukar ugu dambayn baaqaaga ugu dambeeya aad u jeedinaysa jiilka maanta muxuu yahay kale jiilka maanta aniga ila mid ah waxaan leeyahay horumar wacan dadaalkiina inay sii wataan mustaqbalkooda iyo ayatiinkoodna waa inay ka fikiraan aan kugu soo laabto Siciid Cali Muuse sidee baad Siciid Cali Muuse waa maxay baaqaaga ugu dambeeya oo aad u jeedinayso dhalinta maanta joogta kuwaasi oo doonaya inay isguursadaan helaanna guur wanaagsan cabsida ilaahay ha loo dhaqo intaasaan le wax kala dhihi maayo qofka hadduu ilaahay ka cabsado wax kasta waa helaya aad iyo aad ayaad dhammaantiin u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Siciid Cali Muuse iyo Farxiyo Abuukar Cali
oo ka qayb galayay barnaamijka habeen wanaagsan qaybtiisii warbixinada. waxayna guni gabagaba u ahayd warbixinadeena taxanaha ahaa. tani intaan ku kulmi doono warbixinadan kuwa xiga waa anigoo ah Dalmar Cabduqaadir oo idin leh sida ay nabadgelyo.